jiraan dadyow ay sumahaasi saameyn ku yeesheen oo la arkay ma jiraan aniga intaan ka warqabo beerleyda intaan la kulmay ama intaan la sheekaystay daawooyinka dhibaatooyinka ay gaarsiiyaan qofka horta waxay soo baxaa muddo badan kadib qofka markuu dhalinyaro yahay jirkiisa oo is haysto qof xoogan yahay waxa laga yaabaa in daawadii dhibaatadii u qarsoonto oo falcelintii uusan markii arkin oo qofta ku dhiirado inuu daawadii sii wado laakiin qofkii markuu muddo badan joogo ama jirkiisa oo hoos u dhaco ama da oo noqdo inay dib ka soo baxo sababtoo ah daawooyinka qaar waxaa ku jirto qaabka u dhalana cayaanka inay cayaanka daawadii u disho nerve systemka ka disho kale sax inay ka disho kale inta maxaa ku jira nefrit kale inta ka disho marka daawadii qofkii maadaama asna biraadin uu yahay oo intii xuban oo cayaanka leeyahay qayb kamid uu leeyahay markuu daawo in badan buufiyo ama in badan oo isticmaalo qofkii waxa ku dhalanaysa marka in markuu jirkiisa daciifo ama uu da gaaro kale in daawadii dibkeedii soo baxdo oo qofka ama cudurro aan la garanin ku dhacaan ama qaarkii go'o kaleento dhibaatooyin noocaas ku dhacaan laakiin inta badan dadka aan arko waa dad ku dhiiran inay qaabkii sii wadaan ay ayagoo aan wax xiran protection ay daawada sii buufiyaan taas dhibaatada hadda is fahmi karno dib ay ka garan doonaan ayaduna in laga wacyigeliyo oo loo sheego dhibka daawada ay leedahay waxaa jirta inta badan in dadka sumaha isticmaala ama sumaha markay isticmaalayaan ay u isticmaalaan hal sun ama hal nooc oo sun ah ay intay isticmaalaan ay ku celceliyaan geedkii deetana uu cayayaankii la qabsado oo hadhowdii daawadaas ay waxba xataa tari weyso marka arrimahaas qaabab looga hortago maadaama aad nin engineero dee beerihii ka shaqeeyaa tahay qaabab looga hortago oo la hormariyey oo dhallinyarada dee beeraha ka soo baxday ay hormariyeen ma jirtaa arrinkaasu oo ah in daawooyinkii hal nooc daawo ah qofkii beerleyga uu isticmaalo inay ka abuuranto in dalagii ama cayayaankii waxay ka bedeli weyso waa caqabad taagan welina waa filda xiran oo aan weli la bilaabin annaga dadaalkeennu ama waxtarkeennu weli meesha laga rabo ma gaarin sababtoo ah dhallinyarada wax baratay oo cilmiga beerihii baratay waa kooban yihiin dadkii hore ee fildigan bartayna waxa malaysa in arrinta ka jiifaan marka waa fildi sidiisa u xiran oo waxa waa cilmiga beerihii dhan walba laga fidiyo oo la gaarsiiyo ay qayb ka tahay waana fildi weli xiran waa weli la furay oo laga faa'iideysan okay inta waxaan uga gudbaynaa sumihii marka waxaan hadda u gudbaynaa nafaqooyinka nafaqooyinka la isticmaalaa oo wadanka la keenaa ma yihiin kuwa dee ku habboon maadaama wadan walba ay nafaqooyinka carrada elementiska qaar ay ku yar yihiin dhulka wadankaasu leeyahay ma jiraan macnaha waa sheeg nafaqooyin ku habboon in wadanka la keeno mise nafaqooyinka la keena waa iska ashwaaci arrinka nafaqooyinka ah wadankeena ama beeraleydeena waxa ka dhif fara badan sababtoo ah waxa u malaysa sector walba oo kamid ah dhanka beeraha ama input walba oo ka tirsan qaybta beeraha hadii ahaa lahayd abuur hadii ahaa lahayd nafaqo hadii ahaa lahayd sun wixii wax la ogaadaa marka la baaro kadib nafaqa dalkeena ku jirta dhulkeena in la baaro oo la ogaado kee ku badan kee ku yar waxay keenaysaa in la ogaado nafaqada ay tahay in la keeno wadanka tasmiicnada waxay tahay marka wadankeena weli baaritaan sax ah oo actual la sameeyo ma jiro nafaqada la doono yaa la soo keenaa okay dhulka intaan la samaynin adnaan ama sunta samaynin ama dalaga lagu abuurin ma samaysiin baaritaan ah in dhulkan la ogaado waxyaabaha uu ku liito waa caqabad ballaaran oo haysto beerleyna arrinkaas sababtoo ah qofka markuu rabo inuu dhul beerto ma dhul cusub beero ama dhul hor loo beeri jiro oo beero waxaa laga maarmaan ah dhulkii horta in la beero nafaqadee ka baxday nafaqadee ku jirta elementayada ku yarkaa ku badan wadankeen wax soo laab ah ama shay beerka carrada lagu fiiriyo dalkeena ma yaalo mana ka jiro wax baaritaan carra ah wadankeena oo jiraan ma jiraan macnaheedu waxay tahay dadaalkeena iyo maxaan ku sheegay ihtimaal ku saabsan inaan wixii ilka cabir aan ku qiimeeyno carradii ama geedkii saas aanu isticmaalno daawooyinkii oo geedkii isaga tijaabiseen bal inay ka soo muuqanaysiin kale aadiyaad aan ku tijaabino daawadii inay ku fiican tahay geedkii jawaabtu ka bixi aan fiirino qaab noocaas oo ilka cabir aan wixii ku qiimeeyno aadiyaad ma jiraan marka caqabado dhaqaale oo dadka ka haysta iibsashada nafaqada aadiyaad boqolkiiba boqol
waxaan dhigi karnaa nafaqada wadanka la keeno waa qaali inta badan walow aysan jirin elementiyada base-ka u ah ama asaaska u ah geedka inuu qaato ama la macro elements la yiraahdo qaybo badan oo kamid wadanka lama keeno inta la keeno waxa laga yaabaa inay shirkado gaar ama kabaniye gaar ay keenaan qiimaha go'ayna oo aad u sareeyo marka qofkii wuxuu ku qasban yahay ama beeraleygii in uu daawo raqiis ah ama nafaqo raqiis ah oo inta badan uu gedi karo oo soo gato beertana uu isticmaalo meeshan waxa ka baxay balance-igi nafaqada geedku u baahan yahay in la siiyo ahay marka kostiga ama qiimaha nafaqooyinka dalka ay u sareeyaan 100%. waxaa jirta war sheegaya in dadka hadda oo beeraha casriga keeneen ay dhibaato ku yihiin wadanka ama carrada oo ay isticmaalaan biyo cusba leh biyahaas cusbadana hadhowdii ay ku badiyaan dhulkii sodiumka deetana oo geedkii oo noqoto in cusba looga kala tago beeraha qaar ma jiraan waxyaabo maadaama ay jiraan elementiyo loo isticmaalo in cusbada looga remove gareeyo wadanka ma dhulka carrada looga remove gareeyo ma jiraan inay eedayntaas ma jirtaa haddii ay jirtana ma isticmaalaan waxyaabihii carrada looga remove gareey lahaa cusbadaas inta aad sheegtay dhammaantood oo ah caqabadaha haysta beeraleyda oo dhulkii inuu cusbo marka in badan biyihii loo isticmaalo ama biyaha ceelasha inta badan keena cusbaa sarto kooban oo waxaa dhan jirto caqabado guud oo dhanka waraabka haysto oo webigii xilli gaar la waayo marka ay noqonaysan ceelka biyo la isticmaalo ceelkiina caqabadihiisa waxaa kamid ah in dhulkii cusbo badan uu geliyo maadooyinkii cusbadii lagu tir lahaa ama lagu bixin lahaana aysan jirin marka waa problem taagan waxa caqabadaha fara badan ee baaxadda ee badda la eg ee la rabo in la xalliyo qayb ka tahay waxa caqabad jirta xalkeedna lama helin elementiyadii ka saar lahaa dhulka carradana weli wadanka lama keenin waa maxay nafaqooyinka ugu badan marka wadanka la keenaa ama wadanka laga adeegsado gudaha wadanka runtii sida ugu badan wadankan waxa la keenaa hal nafaqo oo caansan baa jirta oo beeraleydan kulli ay wada isticmaalaan oo la dhaha kushiimo ama urea la yiraahdo sida u taqaan waana saddex uriye oo nitrogen iyo phosphorus iyo potassium ama NPK loo yaqaan waa nafaqada ugu caansan wadanka la keeno inta badan waxa kale oo la keeno waa nafaqooyin supplements oo kooban oo ayagana si loogu helaa ay adag tahay maadaama dad kooban ay keensadaan laakiin nafaqada commonka ah ee wadanka la keeno ugu badan waa ureada daawada loo yaqaano oo saddex uriye kaliya ugu jirta oo nitrogen u badan tahay 46 ka tahay marka waa aydna waa gaab dhanka nafaqooyinka wadanka jira oo in xal lagu baahanayna inta badan waxaa jira oo yiri kala go ku yimaada oo yiri qudaarta qaar maxaa sabab kala go'aasi waxa ugu ballaaran ama ugu weyn ee sabab waxa kamid ah in waraab la waayo ama biyihii beerta lagu waraabin lahaa meesha ay ka baxaan si ogta wadankan waxa mar laba webi Jubba iyo Shabeelle gobolada oo maro webiga Jubba waa gobollo kooban ayagana caqabad gaar ah ka jiraan haddii ahaaleed amnigii ama haddii ahaaleed wadooyinkii ama haddii ahaaleed isku xirkii gobolada dalka iyo goboladaas webigaas oo maro oo aad u hooseeyo oo aan laga faa'iideysan webigaasi oo inta badan asiga joogo dhanka kale sida gobolada Shabeellooyinka ilaa Hiiraan inta oo maro webigan Shabeelle waxaa haysto dhibaato ballaaran oo waxa in webigii la waayo xilliga loo baahnaa ama xilliga badan taasoo sababto problemka guud ee caalamka jira ee climate change oo ah in abaaro soo laabtaan oo kale sidoo kale problems asna ah man made problem dadka ay sameeyeen saad ogtay ama ka warayso ama aan xogta aan ku helnay wadanka Ethiopia ee driskeena waxa ka jira dhowr biixin ama dhowr dhaamis ka soo qabo maamulka Soomaalida ee ka jira Ethiopia 90 dhaanbalwasha inta ka jirto deegaankooda 90 biixireen taasna waxay qayb ka tahay in wadankeeni biyo soo gudbi lahaa la waayo taasna ay sababayso xisaabtan la'aan annaga dawladdeena ah oo la rabo in biyahaasi dalkeena soo gaarayo xisaabtan laga galo iyo gortan laga galo caqabadaas waraabka ayaa ugu weyn in la waayo qudaar continue ah noosaar socda oo jira iyo caqabado kale dhowr ah oo sida in amni darro dhacdo maxaan ku sheegay wada xumo waxa soo dhanna waxa habaray oday ah ama ugu weyn nidaamka wadankeena ka jira iyo xaaladda aan ku jirno oo xaalad aad u liidata waa maxay taladaada marka ugu dambe talada aan siinayo bahda beeraleyda waxa isku jirta labo qaybood
tala aan siinayo dadka fildiga ku jira haddii hal hayaan beeraleyda traditionka ah waa in badan soo beerinaya beerahan iyo beeraleyda academicska oo cilmiga bartay oo fildiga ku jira iyo daneeyayaasha beeraha ama heer caalami ama heer goboleed ama heer dal inaan talo guud siiyo oo ah dalkan iyo dadkan lafdhabarta ugu weyn noloshooda ku tirsantaa waa beeraha xosaarka dhulka haddii xosaarka dhulka la waayana waxaa dhacaysa in baahi badan ay imaatay macluul soo laabto sidaad anaga dan haysato waxaan ku boorin lahaa ama aan u sheegi lahaa in sektorkaasi wila dihan waan laga faa'iideysan oo ay tahay in la maalgeliyo indhaha caalamka indhaha bulshada inay ku soo jeestaan ay arkaan meeshaan ama dhulkan faa'iidada ku jirta si ku habboon looga faa'iideysto waa talo guud oo aan siinayo daneeyaasha beeraha beeraleyda traditionka ah beeraleyda academicska intaba in juhdiga iyo aqoonta iyo cilmiga la isugu geeyo dadkan looga faa'iideeyo dhulkan dihan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku manaystay oo ay tahay in laga faa'iideysto aad baad u mahadsantahay Masar Yaxye Maxamed Yuusuf oo nooga warramayay arrimaha beeraha iyo cilmiga beeraha gaar ahaan qaybta sumaha oo aad ay dhibaato uga jirto isticmaalkooda iyo waliba nafaqada oo ayadana sidoo kale ay dhib weyn ka jiro marka intaas ayaan ku soo koobaynaa waraysiga galabta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masar Yaxye waa mahadsantahay.